أدولا كران الله إن شاء الله واسمكم نوصل له وانتهينا أدولا كران الله هرنا وشغلني قدوميها قلها شعبين وصل الشرعية وهي سنوها شرع درجة هاي مركة وانتهينا أدولا كران الله isniintii waa la baajiyay waxyaabo loo baajin waxa qayb ka ahayd cabsi laga qabay dood weyn ka taagan 15 xubnood adig ku jirtid maxaa dadaalkii la sameeyay ee lagu baajiyay kadib guuleystay hadda ma nasmaka aragnay maadaama shirki wada hadalada dawlad goboleed dowladda federaalka u socdaano isku waraayahay arintii doorashada iyo qaabkeedii extension baa laga shaqeynaya marka cadaadis caalami ah iyo mid khilaaf baarlamaanka golaha shacabka dhexdiisa iyo waxaas jiro dhan baa ayaa dib loogu dhigay haddana waxaan qabaa lafteeda inay suuroobi doonin baan qabaa jira karaan wali ma qabtaan dareenkii ahaa in muddo kororsi lagu dhax qariyay ajandahan COVID-19 iyo labada qodob ee kale looga hadlayba hadda culays gudaha uuna ka imaanin oo golaha shacabka iyo siyaasiyiinta iyo dowlad goboleedyada waxaas dhan kulli gudaha iyo askarta laga buuxinayo waxaas kulli haddaan hor istaagin oo laga hor imaanin way ku jirtaa marka way qiimeynayaan haddii ay u arkaan inay jawi ay wax dhihi karaan ay jiraan way dhahayaan in u aragna ma dhahayaan marka waxay ku xiran tahay siday gudaha wax u noqdaan way idinka qorsheena maxaa weeye marka waxaan qaarkiin aan ka haynaa inaad dhahdeen albaabada waxa la dhigay sawiradeeni iyo magacyadeenii marka isleedii waa tay kartaa arintaas waa dambi fardambiyada gudoomiyaha uu sameeyay waaye marka waxaana qabaa xilligan uu la xisaabtami doonaa inkastoo madaxweynaha ka dabaaraan golaha shacabka iska dhamaaday December 2020 oo hadda waxaan ku joogno ay tahay in baarlamaanka la bedeli karo aan ku joogno laakiin waxaan qabaa in golaha shacabka sanadii ugu dambeeyay barnaamijka Soomaaliya qayb weyn oo kamid ah ayuu ahaa ama shuruucda qaabka loo wadaayay wadankana baarlamaanka la laba aqal weeyaan qodobka konton afraad uu sheegayo baarlamaan waa aqalka sare ee golaha shacabka marka extension golaha shacabka ma sameyn karo golaha wax dhacsan asaga dhacsan cidna ma dheereen karo marka وقال ودك اللي قلنا يوقف جنب ملتريون ودك حقوق سنة يا واي مركز ودك حقوق وهسن كرا وحاسنا أنا هنا قبل كنا قلنا مرة ودك كان اندباطية دجال وكلام يفتنا عبد كبر الله تقريبا كنا قلنا مرة وانا كديدين إن شاء الله وانا بديدين عجلة ما سنت وقصة جبانية أمن جينا الله بقى يا مدن تطبقنا الصوماليات وحول والكقباني دب إذن جاري كرو ما دام إننا هو بيسنين وشكتين أن نديار وهنا القرى قارتان magaciidini iyo sawiridiini la qaybiyay marka ma idin ku jirtaa cabsi amaanka wallahi naqtay buqila oo talagalay go'aysa annagu difaaceen reenta sharciga iyo dictatorship diideen iyo wadanka dagaasoo ka inuu diideen iyo dulmi diideen iyo kutumasho iyo dictatorship diideen hadda wadankan ugu dhimanno waan ku faraxsanahay marka wax walba ma jira taas ma aaminsantiin wixii aad samayseen qalad ahayd daraad boobka iyo foodada meesha ka dhacay kursigii ama gudoonkii xafiiskiisii la tagay oo qaarkiin ma isleedii waxba idin ka dhacay waa ku sameeyeen annaga ciidanka meesha qabsaday ma dhaana gudoomiyaha ka saar marka 200 askari oo joogtay 200 keenaya yiri kamana saaray waan la hadlayaa marka tuugaan qabnay way coronavirus iyo maxaa isu keenay coronavirus iyo maxaa isu keenay 200 askari waxa la soo weydiinaa taas ugu dambeyn maxaa ku baaqaysaa taladaada maxaa weeye talada waxa weeye in wadanka dagaasho ka golaha shacabku inay geliyeen inta aan uga digaya waayo farmaajo waqtigiisa uu dhamaaday wadanka laba aqal buu leeyahay siyaasiyiintu ka soo jeedaan dowladda ka soo jeedaan Soomaaliland hore u gooday wadanka inuu kala go'in oo kala tagin dagaasho ka inaan gelin baa ka digaya waxa uu maxamed sameynaya waxaan iska taariikhda qori doonto insha Allah laakiin waxaan rajaynaynaa in laga hortagi doono dadka